halkani waa beerta Barako oo ah mid ka mid ah goobaha u qaabaysan martigelinta kulamada, shirarka iyo dalxiiska. waxaa kulan qada sharaf ku yeeshay beertan oo ku taala duleedka bari ee magaalada Garowe. mas'uuliyiin xilal sare ka soo qabtay Puntland, kuwa iminka ka haya aqoon-yahano iyo waxgarad dhammaantood ka wada tirsan jaaliyadda Puntland ee dalka Ingiriiska. kulankan oo noqonaya kii ugu horreeyay oo ay geed hooskiis oo dalkooda ku yaalla ku yeeshaan mid ka mid ah jaaliyadaha Puntland ee dalka dibaddiisa. ujeeddadiisa waxaa lagu sheegay inuu daaran yahay dhowr arrimood oo kala ah: isbarasho jaaliyadda dhexdeeda ah iyo isxoguraysi ku qotoma xaaladda ka jirta Soomaaliya, khaasatan tan Puntland. waxaa ka qayb galay qiyaastii 50 qofood oo ka tirsan jaaliyadda Puntland ee ku nool dalka UK. waxaa ka mid ahaa arrimaha ka dhashay kulankooda oo la iskula gartay ayididda shirka wadatashiga Puntland oo uu iclaamiyey madaxweyne Siciid Dani, laguna wado 15 bishan inuu ka furmo magaalada Garowe. inuu noqdo kulankan mid bilow ah oo ay ka dambayn doonaan kulamo badan oo xubnahani isugu soo laaban doonaan, iyo in laga qayb qaato hirgelinta isbeddelka siyaasadeed ee nidaamka xisbiyada badan Puntland. odayaalato marka hore shirkan aad soo ajiibteen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. magaaladan ama tuuladan ama beertan waa beertiinii. waxaan isugu nimid maantay Soomaalidu badanaa shirarkooda waxay u badan yihiin shir qabiil. annagoo shir qabiil iskuma aanu imaan. waxaan isugu nimid dalkii markii aanu ka tagnay Soomaaliya waanu haajirnay dhulalka shisheeyaha. intii isku meel degtay ama isku timid baanu nahay reer UK baan nahay, waa ku dhanna. sidaa awgeed shirkaan aan idiin furaya xiriiriyaan idiin ahay. ajandaha waa la sheegi doonaa. maadaama dad muslim aanu nahay, islaam aanu nahay, aayadaha qur-aankaan ku furanaynaa bismillaahi kariim. marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa sheekh cabdisamad insha allah cali xaashi. الله سبحانه وتعالى وحير لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. marka wixii ka soo hara saddex arrimood dadku inay isu yimaadaan wax baraka ma yeelato, khayr ma yeelato. in cabsida Ilaahay iyo wanaag la isku farayo oo aatan u istaagnay in hadii Ilaahay ku rooyahay sadaqo lagu ururinayo, in dad lagu walaaleynayo, lagu heshiisiinayo. ومن فعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. marka qofkii sidaan Ilaahay dartiis u sameeya, Ilaahay ajri uu asagu ku tilmaamay wax weyn ayuu siinayaa. marka inaga shirkana Ilaahay mid mataqaana aynu macruuf iyo wanaag iyo cabsi alla isku farna Ilaahay nooga dhigo. Ilaahay isuu kan dambi dhaafo. wixii shar ah oo inagu soo aadan jirooyinkii wax la sheegayna Allah naga hayo. Faatiha. anaga aqbalo faatixadana la maray. waxaan marka muhiim ah ajandiyan sugu nimid iyo shirkan sidoo ku dhashay iyo waxaan la doonayo in ka soo baxaan wax idinka imaanaya. xafladda shirkan waxa ugu muhiimsan oo horta fikraddu waxa keenay ugu horeysay waxaan naczumay xidig iyo gudoomiyaha shoodhe iyo saacada ala horta fikradda markii ugu horeysay keenay. dad kooban bay ahayd, kadib waxa la yiraahdaa ballaarino si la isu wareysto. muhiimadda horta ugu horeysay taas ay ahayd. taas hadda halka uga gudubno macnaha dad saaxiibo isu yimid oo laga yaabo qaar xataa inay aad isu aqoon. waa shir iska furan, dad saaxiibo is cazumay baa ugu muhiimsan. laakiin anagu waxa istusnay
maadaama oo waxyaalo badan oo isbedel badan wadanka ka jiro oo hadda oo shir baa soo socda Puntland xisbiya arrimo xisbiya jira muxuu arrimahaas in wax la iska yiraahdo oo wixii input ah meel la isugu geeyo oo la draft gareeyo oo loo gudbiyo cid ay khusayso taas aad iyo aad isu tusnay waxaan kaloo istusnay kulay dadka wax walbaalay waaye dad oo wasiirra nagu jira oo diasporada nooga yimid oo iyagana hadda ilaa heer wasiir gaaray agaasimayaal ku jira la taliyaal sare ku jira macnaha dad badan oo dawladda u shaqeeyaan nala jooga dad ganacsato nagu jira in muxuu ahaa uusan noqon shirkan shirkii ugu horeeyay shirkii ugu dambeeyay uusan noqon ee uu noqdo shirkii ugu horeeyay kadibna meeshaas laga sii ambaqaado oo talooyinka la isku biiriyo wixii maaragtay ama ganacsi ama mashaariic iyo wixii laga tashan karo intii dadka isfahmi kartaba taasna waa istusnay marka waan idinku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مهد إلهي سبحانه وتعالى ودمان تيد اسكاله هل كان ما أنت يسوق كاني بنور السور تجلي كلن كان قروح ذا بدن وحنسود وين يا سيدو كله شاليدا في UK ماشى يسوق تيمي يدا نواسود وين دونا إن شاء الله تعالى qodobkaasi soo dhaweynta hadaan ka gudbo waxaan u gudbayaa intaan badi waxaan u maleynayaa dalka waa degan yihiin in yar baa fiisid ama holiday ku timi laakiin inta badan waa dad deegaan oo Puntland ku sugan jaaliyada waxaan doonayaa inaan ka hadlo jaaliyada muhiimadeeda jaaliyadaha dibadda guud ahaan iyo gaar ahaan midda UK guud ahaan jaaliyaduhu xilligii dalkan burburay waxay lahaayeen muhiimad lafdhabar ah waxayna ahaayeen dadkii dadka soo samata bixiyay soo dadaalay in dalkiyo dadku uu dib dhibaatadii uga jiray uu uga baxo oo nolol iyo horumar la hiigsado jaaliyadaha dibaddu waxay u ahaayeen lafdhabar waxaanu oran karnaa jaaliyada UK waa jaaliyada ugu weyn uguna qadiimsan jaaliyadaha Yurub ka jira waa meel loogu horeeyay waxaan oran karaa horumarka ilaa bilowgiisii dalka ka socda 30 sano u dambeeyay oo dalku burburay iyo soo kabashadiisii waxaan oran karaa waxa hormuud ka ahaa jaaliyadaha dibadda guud ahaantood gaar ahaan UK dhammaan horumarka ka socda haday tahay xag siyaasadeed xag dhaqaale xag bulsho xag tacliineed xag caafimaad dhammaan dadkii lagu tiirsanaa ka qayb qaadanayay ama gacanta koowaad lahaa ama fikradda iyo halabuurka lahaa ama gacantii markaa wax fulinaysay hadii xataa halabuurka iyo fikraddu ka timaado gudaha dadkii fulinayay oo lagu tashanayay ayay ahaayeen ganacsiga maanta dalka ka socda noocu yahayba markii laga yimaado arrimaha publica oo airboorada maxaan ku yiraahdaa wadooyinka waxa publica oo dhan markii laga yimaado iskuulada oo iyagu ay gacan weyn ka dhisaba 70% ay iyaga ku tiirsan tahay oo ay ku dhiseen oo taageeradooda lagu dhisay markii laga yimaado ganacsiga socda iyo quruxda iyo bilicda dalka socotana waxaan oran karaa jaaliyaduhu waliba tan UK lafdhabar bay ka tahay haday tahay ganacsi nooc walba ilaa heer walba leh hoteelo waxaan ku yiraahdaa warshado waxaan ku yiraahdaa ganacsiyada kala duwan oo kale nooc walba uu yahay waa dadka ay ku tiirsan tahay ama fikradaha iyo halabuurka keenay marka jaaliyadu muhiimadda noocaas ayay leedahay midda kale waa dad wada khibrad leh waa dadkii aqoonta lahaa ama dadkii kaadirka ahaa oo dalka ka qaxay oo meelihii burburku ku horeeyay ka tagay khibradoodii bay dalka ku soo cesheen aqoontoodii bay ku soo cesheen haddana waa soo degeen marka horta waxaan muujinayay oo uga dan leeyahay in ay jaaliyadu ay muhiim tahay contribution-keedana ay mar walba ay muhiim tahay iyo fikradaheeda iyo aqoonteeda ay dalka ku soo biirisay waan uga mahad celinayaa waxaan leeyahay haddeer wali fursado badan baa inoo furan ma taqaanaa dhinac walba talooyin badan baa inoo furan dalkana muhiimadaas aynu insha Allah taala horena loogu lahaa haddana lagu leeyahay in la iskaashado oo marxaladaha lagu jira hadda sidii looga gudbi lahaana insha Allah taala la iska kaashado waxaan leeyahay akhyaarta soo dhawaada intaana waa in kooban oo kamid ah jaaliyadii ama kuma wada dhama maadaama shalay fikradu timi
maantana laga dhigay in la isu yimaado ayaa sababtay in dadka afartaneeyaha ku dhow ay isu yimaadaan laakiin magaalada waxaan oran karaa mararka qaarkood waa nus waana UK kaliya hadda Yurubtii kale iyo qurbihii kale ilaa North America iyo Mareykan iyo Australia iyo New Zealand hadana waxaynu xamaray reer garow waaba isla kaan lahayd hadda garow inta joogta waaba isu dhawaan lahayd marka insha Allah soo dhawaada dalku waa dalkiini horumar badan baa socda intiina cusubna way ku soo dhaweynaa inta badanna waaba degan tahay bal talooyin iyo hal yeesho dadkii ina ka maqnaa oo aynu ka nimina waxaan ugu baaqayaa dalku waa nabad hala soo dego sidii hore mataqaana waa ka duwan yahay horumar badan baa jira amni badan baa jira in lagu soo dhawaado oo caruurta iyo haweenka iyo dadka iyo dib loogu soo cesho oo istaandaradii iskooladii iyo waxyaabihii loo baahnaa iyo waxyaabo badanna waa la helayaa caruurta dhaqankoodii iyo dalkoodii lagu soo cesho iyadana waa codsanayaa oo fariinta waa idiin soo diraynaa ilaahay idankiis dadkeena banaanka waxaan halkan waliba ka sii codsanayaa kala akhyaarta fadhida odayaasha in halkan dib aynu uga abaabulno jaaliyadihii saynu dalka ugu soo jiidi lahayn oo u keeni lahayn oo mataqaana aynu u tusi lahayn in dalkii dib lagu noqon karo insha Allah taala ilaa idankiis Soomaalidana waxaan ugu baaqaynaa midnimo iyo iskaashi iyo mataqaana in la isu tanaasulo dadku isu soo dhawaadaan baan iyadana insha Allah taala Soomaaliyeed ugu baaqaynaa Puntland waa laf dhabarta Soomaaliyeed ilaa idankiis mar walbana dadkeedu wuxuu jecel yahay sidii Soomaali la isugu keen lahaa loo midayn lahaa la isu kaashan lahaa insha Allah waan uga mahad celinaynaa runtii doorka shariifka mar walba inay qaataan waa mahadsantiin billahi tawfiiq waan islaamaya walaalkay ku yiri anigu qofkii si gudbiyay billahi aan hadda siinaya runtii aan hadda siinaya fikirka ninkii lahaa markii hore soo isxilqaamay xidig weeye saas xilqaamay waxaan noo suurtagal weeday markii hore waxaan rabnay Yurub inaan ka dhigno waxaan ogaanay ilaa 300 Yurub joogto marka waxaan ku leeyahay reer UK kaliya aan ka dhigan wixii ka soo bax marka Yurub aan la aadnay bismillaah kalim hadana walaalka Cabdirasaaq aan ku soo dhaweeyay bismillaahir rahmaanir rahiim رالي هذا هذا بدنا نجيبه أنا كم بسنتين عجيب كاسة عجيبتين فكرة وفكرة أنا كوات شناي هنا نسبرنا تتقال بانس أقونين تذكرين سو برتان إن لسحق وريستو نقول بوحدة دكو يمد وحكسو كرنا يو رجيو يهرو شوقي وحو خبرت ربا إنه كلا تستو عم بعمزنا هذا أما وحياة كلا ربا إنه قفك سمايستو dadkii gudaha dibadda joogana Ingiriiska laga joogana in ay iyaga laftigooda aan u sheegno inay dalka yimaadaan wax ka qabsadaan dalku waa nabad waxa weeye waxaan aad ugu faraxsanahay anagu marka hore qorsheenu waxa ahaa qorshe yar gaaban laakiin ragga soo jeediyay oo ahayd in la ballaariyo waa fikrad aad fiican bay ahayd oo raggu soo arkaan waan ku baasantiin waan soo dhaweynaynaa waxa weeye qof walbana waxaan jecelnahay inuu fikradiisa soo jeediyo waxaan aan baarno teena gudaha aan ugu horeysiin oo ah dawladda Puntland waxay shirkaanu ay ugu yeertay iyo waxa laga leeyahay mustaqbalka federaalka dawladda Soomaaliya si Soomaali weyn loo raadin lahaa iyo baahida iyadoo kale oo dalkayga dibadda ah dadkii joogay intaas aan ku wacyi gelino waana maasantiin khayr baan rajeenayaa waxaan ilmaanay dawladda laftigeeda waa fadhiya agaasimayaal baa fadhiya madaxtooyadii baa fadhida wasiirana waa fadhiya insha Allah waxaan ku wareejin doonaa waan u dhiibi doonaa mikrofonka raggeena hadda ninka u daaweyno Xasan Soomaali iyo Xasan Barre ugu weyn baan maleynaya Xasan Soomaali waan u dhiibi doonaa ilaahay idankiisa والصلاة والسلام على رسول الله waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay iftiraada kan naa marti qaaday anaa ku marti qaaday cadow waa jiraan beertan qurux badan oo hawadeedu furan tahay
oo dhirta quruxda badan iyo hawada quruxda badan leh waxaan ugu mahadnaqaynaa Xidig iyo Axmed Masode iyo baan ugu mahadnaqaynaa iyo cidii u helaysa shaqada ahayd inta haddaan ka tago hadalka badanba maayo anigu waxay ila tahay haddaynu nahay qurba joogta UK waliba London iyo Birmingham badan innana waxaanu leenahay maqaamkeena in dalkeena iyo dowladdeenu ina mariso innana waxaan leenahay ku leeyahay maqaamka dowladdeena iyo dalkeena inaynu marino ixtiraamkooda iyo wax la qabadkooda iyo la shaqayntooda aad baad u mahadsantihiin hadalka badan maayo aad baad u mahadsantihiin shirweynihii aynu isku dhaafsan lahayn aaraada iyo ajandaha lahaa waxay tahay inagu ajandhaha ma samaynayno ajandaha shirka waa inoo iman doonaa inaynu inagu wada jir inagoo meel ka soo wada jeedna wixii aaraaya wixii aidhiyaara ka dhiibanno markaasay inoo tahay waa salaamantiin wax walba nabadda ayay hoos yimaadaan taas sidaas baan ugu baaqaynaa dadaalkii hore oo waagii hore oo dalku burburay jaaliyadihii kowga ahaa London UK isku duub iyo Canada waliba Toronto bay ahaan jireen aad iyo aad bay u dadaaleen aad iyo aad bay u shaqeeyeen dabeedna jaaliyada badan oo kale oo North America waxa uu sii xoog badnaatay baa samaysmay iyo Yurubta kaleba hadda waxaad moodaa in dhaweydiin xoogaa arrimihii qaboobeen dadkii xoogaa la yiri war waxba haddana loo kama baahno oo hurdo la galay iyagana waa ku baraarujin lahaa dalka inaan laga seexan loo soo jeesto ama hab shakhsiya ha ahaato ama hab jaaliyadeed ha ahaatee midaan shirka hadda fooda ina ku soo haya iyadana waxaanu jecelahay ilaahay iidankiis wax wanaagsan inay ka soo baxaan wax dalkan iyo dadkan iyo diintooda dan u ah inay ka soo baxaan oo wanaagsan oo farxad leh dadkuna waa badan yahay ujeedooyin badanna waa kala lahaan karaa raayaashu waa badnaan karaan laakiin anagu waxaanu leenahay hor iyo horaan dalkan dantiisa wax walba ha laga hormariyo iyo midnimadiisa iyo amnigiisa iyo wada jirkiisa iyo cadaaladiisa baan leenahay kadibna midda Soomaaliyeed iyadana xil baa naga saaran qaybteenaan ku leenahay horeyna lafdhabartii ama hooyadii baa la oran jiray haatanna wali halka waa la iska eegayaa laakiin ninkii tiisa daryeela tu kala ku dara horta tan waa in la taagaayo la xoojiyaa oo la meel mariya kadibna midda Soomaaliyeed lagu dara intaasaan kaga baxayaa waana idin salaamayaa raallina iga ahaada haddaan odayaashu mar hadday warka bilaabaan way iska dheereeyaan raalli ahaada waliba waxaan ka mahadcelinaynaa casuumadda ay noo sameeyeen reer London intaasi waa mahadcelintii dhowr qodob baan sheegay yaa waasaas dhowr qodob baan sheegi lahaa anigu horta number 1 waxaan oran lahaa shirkan ayaan loo kala tagayna guddi heer UK hal qabto oo laba qayboodna hal loo qabto qayb horta hawsha reer UK Puntland ama Garowe sidoo hal la yiraahdo si wada oo maartay afkaarta iyo kulamada iyo barnaamijyada iyo ka sii shaqeeya guddiga hala sameeyo waliba guddigaasi waxay kala qabanayaan qodobka la qabanaya waxa weeye ajendihii reer UK shirka geyn lahaayeen inay soo draft gareeyaan anigu haddaan reer Birmingham odaygaygu waa Cabdikaafi isaga odayna guddiga noogu jira marka de madaxda dibaatiin London inta kale waa idinka guddiga inta kale marka waxaan lahaa fikradda ku darsano fikradda ah shirka madasha lagu wada tashanayo Puntland inay reer UK ra'yi geeyno oo inagoo jaalida reer UK oo guddigaasi loo geeyaan aan waa ku talinayaa qodobka labaad waxa kale oo jira barnaamij hadda waddanka ka socdo oo alla socotaano asxaab siyaasi ah oo madaxweyne ku dhawaaqay arrintaana inaynu ka mahadcelino ku dhiirigelino dawladda iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamaanka laga dhabeeyo arrintaa oo bahashii ahayd maaragtay
4.5ka aynu Soomaaliya u bilowno haddaynu reer Puntland inaan laga gudbay laakiin hadhow markay baashu 4 sano gabagabowdahay aan la oran ma tii baa lagu noqonayaa 66kii arrintaana aynaynu reer UK ra'yigan waxaynu akhrnay wadamo dimuqraadiyad ku hergashay oo labada qodob aanu ku run lahaa in guddiga la sameeyo guddigaas ka shaqeeyaan arrinta looga mahad celinayo madaxweynaha iyo dowladdiisa maxay ahaaytay axsaabta badan inay maartay hirgasho dhab uga hirgasho iyo shirka aynu fikrad ku yeelano oo guddiga la sameeyo intaas aan lahaa billahi tawfiiq salaamu calaykum raxmatullah haddana waxaan ku soo dhaweynaa ugaas daahir ugaas maxamuud indhayare oo ragga meeshaan joogay saa wax isiina ugu jira marka inuu bismillaahi kariim noo soo gabagabayo noogu duceeyna insha Allah aad ayaan ugu mahad celinaynaa xafladan iyo soo dhaweyntan iyo fikradan labo wax badan baa cabaar baa la hadlay hadalka badin mayo waxaan rabaa inaan soo xiro muxuu ahaa qaybtii hore oo hadalka oo ahayd isbarashadii iyo soo dhaweyntii iyo shirka ujeedadiisa iyo waxaas oo dhan ka bacdina aynu u gudubno qoladii tiri warbixin baan idiin haynaa oo madaxweynaha iyo maanta u tegey iyo go'aankeenii aynu gaari lahayn siduu ahaa haddii rag halka laga xulayo haddii ballan la isu dhiibayo haddii la wada tegahayo si kastaba ahaatee habkii shirka aynu u fulin lahayn inaynu haddana marka dambe u gudubno wassalaamu calaykum waraxmatullah qaybta hore shirka saasayna ku xiran